موعد inaan ka hadlo midka ugu horeeya waxa weeyaan qorsideeda bini aadamku ilaahay baa wada abuurtay ilaahay hadduu wada abuurtayna wuxuu siiyey samac iyo basar wixii xun isku diido wixii fiicanna uu ku aqbalo wixii danihiisaana awood uu ku qabsadaa ilaahay siiyey dabeecaddaas inagu wareegsan oo si kastaba aynu arkayno oo dabayl leh oo bad leh oo biri leh oo beer leh oo xoolo leh ilaahay bini aadamka ayuu ka saramariyey wuxuu siiyey awood uu ku bedelo uguna tasarrufo sida isagu isdoonayo had walba ciddii fahamtay awooddaas weynoo ilaahay siiyey waxbay ku qabsadeen dhibaatooyinka dabeecadda kaga imaanhaya ama bini aadam kaga imaanhaya markaa ugu tabaabushaysten waxay ku qabsadeen waa anfaceen qolo walba noloshoodii ayay ku hanteen qoladii karteen waxay kaga baxeen faqaaradii waxay kaga baxeen jaahilnimadii waxay ku qabsadeen danahoodii ayay ku xaqiijiyeen kuna sugeen inaan dhibaato ugu imaanin ama ay dhibaatadii ka timaadaba ay uga gaashaanteen say uga hortagaan markaan sidaa leeyahay waxa weeye balorta awooddii ilaahay ina siiye ku camalfalkeedii allah ina garansiiyo shacbiga Soomaaliyeed bini aadamkaas kale tuu ka mid yahay oo badan haddana waa markaan leeyahay dal taajira iyo dad faqiir ah isku dul nool dadku faqiir weeye laakiin dalku taajir weeye ilaahay wax walba waa dhigay bad buu dhigay beer buu dhigay xoolo ka badiyay hawo fiican buu siiyay kulligeen shaarar baynu qabna 12 bilo shaararkaas qabayna adduunka meelo badan kama dhacdo taas dhowr nooc oo labis waa in la isku bedela oo dhaxanta mid la isaga celiyo oo mid qorraxda la isaga celiyo oo mid dabaysh iyo balaayo waaweyn la isaga celiyo naga aad baa ilaahay noogu roona laakiin waxaad moodaa ama asal aqoon darro haynoo geyso ama isticmaalba hayna aaminsiiyo inaynaan waxba qabsan iyaga barino hayna aaminsiiyo haddana waxaad moodaa inaynu faqiirnimadii kula nool lahay sababihii la imaanhayeyna inaynaan dareemaynin sidaynu isaga caabii lahayn waxaad moodaa habkii ama tabtii aynu kaga bixi lahayn dhibaatada noocyada kala gedisan leh oo ama bini aadamku uu dalkeenna u geysanayo dadkeenna ama dabeecadduba haddaad la dagaalami way kula dagaalamaysaa awooddii alla ku siiyey aadan uga hortegin oo aadan wax ugu qabsanin inay ku hayso shacbigeenna dhibaato badan haddana waa dalkaa taajirka ah saanu sheegahayo dadkeennuse ma garan tajaaradaas ilaahay siiyey oo dadnimo oo dad fiican wey dadkeennu dad xun maaha iyo qaniimadaas ilaahay dalkooda ugu beeray nooc kastaba ha noqotay inay ka faa'iidaysan lahayiin faa'iido darradaasna ay ka imaanayso dariiqad aan habboonayn u fakerta ama ku shaqaysa weligoodna uu isticmaar lu ku leeyahay ajnabi uslug ku leeyahay intay iyagu taladooda iyo tabartooda iyo dantooda iyo dalkooda iyo naftooda iyo ilaahad inta aaminaan ay wax qabsan lahaayeen waxaad moodaa aad inay ugu janjeeraan cid kale inay wax ka sugaanin waxaad cid kale ka sugtay ma ku dhergin karaane maya ma ku dhergin karo barya aadan ma ku dhergi karaysaa weligaa kuma dhergaysa wax kastaba ha lagu siiyo inta ugu xoolo badan adduunka hadday waxooda kugu shubaan weligeed ku deeqi mayso waxaad adigu gacantaada ku qabsato iyo maskaxdaada iyo taladaada iyo garashadaada waxaad ku qabsatay wax ku deeqi kara intaasaa jira oo uu la jiro iimaan iyo kalsooni aad naftaada iyo dalkaaga iyo diintaada aad ku qabto wax kaloo ku deeqi karaa ma jiraan Soomaaliyeed dantaada u jeeso iska daa indhahaad u taagayso dalal kaleeto iyo wixii ka imaanay warkacay aynu tabcanay beereenna aan tabcanno oo baddeenna kala soo baxna wax ku yaa oo xooleenna aan xanaanaysanno aan ku noolaanno wixii wax ina dheer aynu kaalmaysanno asaan cadow ku ahayn dalkeenna iyo dadkeenna arrinnu intaas weeye diinta aanu gudbo nabigeennii suubanaa nabi maxamed tawrad buu sameeyey ilaah baa u dhiibay tawradda ku ahnayay tawrad buu sameeyey meel adduunka aad tagto aadan dad islaama ku arkayn yaa fidiyey waxa yaa gaartay tawraddii nabi maxamed loo soo dhiibay ilaahay u soo dhiibay baa fidisay oo qof walba oo islaama taasaa saaran gacanku markuu dhashay waa shirinay waxaan war dhegaysta waxaynu caabudnaa waa ilaahay weynaayo waaxid ah wuxuu inoo soo mariyey oo inoogu sheegay dariiqaan raacinayna kitaabkiisa kariimka
wuxuu inoogu soo dhiibay rasuulkeennii suubanaa inoogu soo dhiibay ha inoogu soo dhiibee waxaa halkaas ka soo ifbaxay ficilkii iyo qawlkii nebigu uu ka tegey ayaa ka soo ifbaxay xadiis buu noqday marka qof walba dariiqadiisa ha haysto hadduu doono laakiin midka inaga dhexeeyaa waa tiirkaas dariiqadaada wado laakiin kaas uu ilaahay guddoonshay ummaddaas aan abuurtay inta midowdaan ha kala furfurmina taasoo ha noqota asalkii dariiqa la raacaya kaas way ku dhaqaaqeen mahad iyo ammaanba waa u jeedinaynaa haddaan taariikhda dib u raaco culimmadii la tirinayey ama tawriyiintii la tirinayay magacyadooda waxay ahayn kuwii badbaadiyey kollayba dadka Soomaaliyeed inay baaqi ku ahaadaan islaamnimadooda dawladdu markii ay go'aarto go'aan ama sharciga qaranka la dhigo fuliyayaal bay u baahan fuliyayaalkii adinka weeyaan waacidinta weeyaan dariiqooyinka weeyaan madaxda masaajidka weeyaan iyagaa la rabaa inay fuliyaan iyagiyo wasaaradooda yaa mas-uuliyad dul saaran dagaalka labaad waxa weeyaan midka dhaqaalaha waad ogtiin macaashadu meesha ay sii marayso haddaynaan annagu inta marada dhexda ku xiranno adkaysanno aynaan tabcinna weligaan ka bixi mayno gun iyo gacan horsi baan u dhammaanaynaa ma gun iyo gacan horsi baan ku jiri karnaa insaanku sharaf buu leeyahay karaamuu leeyahay oo maanu inta ilaaheen cuskanno iyo nafteenna maynu qof yaanba inta qaato waa ka halkaa dow ka baxaye maanu wax ku abuurno bal qof walba gurigiisa muu ku abuuro geed lima inuu bixiyeen kala arkay oo geed babaaya ku abuuro oo geed cambaa ku abuuro waa baxaya qof gurigiisa uusan baxayn ma jirto hortiisa waxaan kaga bixi karnaa inaanu u jeedsano tacab kii badgalaa ha galo kii biri galaa beer ha ka doonto kii xoola haysta ha tabcado ha xanaanaysto kii wax kaleeto oo qiimo leh qabanaya ha qabto qof gaajaysano gob ma ah gun wey wixii la rabo iyo dantii la rabaa laga samaystaa oo maxaanu nagu kalifaya inaanu saas u gurowno dadkeenna inaan jahayna doonaya innagaa la rabaa inaan jahayno tan saddexaad waa dagaalka shacbigeenna lagu abuuray in maanta 16 sano kadib oo dulligii foosh xumaa aynu ka soo baxnay dad ahaan iyo qaran ahaanba haddana la doonaya dib in loogu celiyo qabiilkii xumaa oo isticmaar ka dambeeyo waa isticmaarka xabashida waxaa loo baahan yahay ummadeenna inaynu hanuunino oo culimadiinaan waaweyno weliba aad marada dhexda ugu xirataan ayaa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay inay ku tarsaasiyaan oo kor ugu hadlaan oo si geesinimo ugu hadlaan inay ummadooda toosiyaan oo ka hanuuniyaan dariiqa jahannamka ah dariiqa muslimka inay ku leexiyaan والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته